maxaa dhacay 14 Oktoobar 2017 xamar dhaxalumay helin dhurwaag iyo dad qalatada misna xiran dhar caadi ah waxaan leeyahay horta dadkii la dilay iyagu dhib ma qabaan saan u rajaynayn maxaa yeelay waa shuhado waa gacanta dishay gacan daalimada bay ahayd gacan gardaran bal ila qiyaas halkee haddii dhagxaantii halkan ka taagneed iyo shubkii halkan ka taagnaa uu sidan isku beddelay ma ila qiyaasi kartaa hooyadii halkan fadhisay waxa gaaray Oktoobar waa maalin aan la ilaawi karin 14 Oktoobar waa maalinkii la xasuuqay ummadana waxba galabsan waa maalinkii magaceedii uu noqday maalinkii madooweed 14 Oktoobar waa maalinkii ay ilmeeday hooyo Soomaaliyeed 14 Oktoobar waxay ahayd maalin xanuun badan midaas oo intaan lagu soo koobi karin wixii dhacay maalinkaasi waxay ahayd galabnimo sabti ah taariikhna ku beegneed 14 Oktoobar waa 2 sano ka hore waxaa ka qarxay iskooska soo baqarax weyn midkaas soo gilgilay magaalada Muqdisho Dhalyana Qiic Mugdi iyo magaaladii oo isbedeshay Soobe waxay ahayd meel horumar fiican u tilaabsatay midaas oo rajo weyn laga lahaa Soobe waxay ahayd meel saxmad leh oo dadku aad ay ugu badnaayeen waxa u soo shaqo doonan jiray qaybaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed bal ila fiiri markana wariye Axmed Xaaji Xasan oo kamid ah wariyaasha ka shaqeeya BBC oo booqday sanadkii tagay 2018 Soobe xudunta halkii uu ka dhacay qaraxa hoteelo maqaayado iyo xafiisyo ayaa burburay gaariga ayaa qarxay xilli mashquul badan wuxuuna ku qarxay mid ka mid ah jidadka ugu saxmadda badan Muqdisho hareeraha wadada waxaa ka buuxay dad isugu jiray dukaamaysato iyo ganacsato kuwana waxa ay saarnaayeen gawaarida xilligii qaraxa uu dhacayay saamaynta qaraxa waxaa sii xumeeyey booyas shidaal siday oo gaariga uu ku qarxay waxaana ku dhintay in ka badan 500 oo qof weerarka midkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya dadka ma kala soocin waxaa ku dhintay wariyaal qurba joog soo noqotay arday iyo shaqaale caafimaad Xabiibo Diiriye waxa ay in ka yar 50 mitir u jirtay meesha qaraxa uu ka dhacay laba xarun oo ganacsi oo ay lahayd way burbureen balse nasiib wanaag ayada dhaawac culus ma uusan gaarin waxayna xasuusanaysaa wixii galabtaas dhacay anigu hawda baa igu dul dhacday mooyaan حبان ومشيدي إنها نسكوها صلاة عصر ما صلاة تكو قلبي أنا إنها وينسكوها قلبي أنا وحنا كلها وليلا ما أقيمينه مركلا قيمة تكو صلاة عصر أنا جا ما مصومالي يضو يالو قرابة تانا دني ظروف بايقوها يسمويانه نفتض أهان نفتض يبلامي يا مصين كرتو لكن dareemi kartaa duruuftu ka xog badanta waxa ku soo kordhay xarumo ganacsi iyo dhismayaal cusub taasi waxay muujinaysaa adkaysiga shacabka magaalada Muqdisho balse wali waxa taagan cabsi la xiriirta inay mar kasta dhici karaan wixii dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore wixii dhacay saacad walba way iman karaan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo istaagay maalmihii xigay iyo khudbadiisii gaabneed بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u tacsiinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen maanta dadkii sida waxashnimada ahaa loo weeraray waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistiisa jannadiisa siiyo samir iyo iimaan ka siiyo asxaabtooda eheladooda iyo qaraabadooda walaalayaal weerarkan naxariis darrada ah wuxuu ahaa mid la beegsaday dadaan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa nolol maalmeedkooda caadiga ah waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha amniga kuwa caafimaadka shacabka Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay sidii ugu soo gurmadeen una badbaadiyeen dadkooda waalaha ah oo qaraxan waxashnimada ah
ee dhibaatada ka soo gaartay waxaan shacabka Soomaaliyeed aan ku boorinayaa aan ku adkeenayaa inay garab istaagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan siiyaan dadka waalahooda oo maanta ku waxyeeloobay qaraxii waxshnimada lahaa oo ka dhacay magaalada intaas kadib sabab waxaa magaceedii lagu bedelay 14 Oktoobar iyadoo wax badan ay isbedeleen waxaa loo qaaday heeso gabayo maaso iyo waxyaabo badan oo xusuus looga dhigay maalinkaas bal ila dhageyso markana maasadii loogu magac daray xamar dhaxal uma helin oo uu qaaday xasan dhuxul labsaalax wuxuu yiri xamar dhaxal uma helin dhig korkeeda lagu qabo xamar dhaxal uma helin in dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxal uma helin in dhexdeeda lagu dilo dhalaankiyo duqaytida xamar dhaxal uma helin dhirqdiyo colaadaha xamar dhaxal uma helin geeri joogta iyo dhagal xamar dhaxal uma helin hadba qarax dhaca iyo dhiilada iyo waxyeelada xamar dhaxal uma helin dhurwaag iyo dad qalatada misna xidhan dhar caadi ah xamar dhaxal uma helin dheeligeeda nacab jecel xamar dhaxal uma helin dhismaheeda ruux neceb xamar dhaxal uma helin inta gacan ku dhiiglaa ninka diin ku dhuuntiyo dhareerliyan liitiga dhowaan way ka dabarguy masiibadan dhirbaaxdiyo way ka bixi dhibaatada nabadhalataba iman dhogor baa u soo bixi dhool iyo gubaa curan dhulgariirkan faalle waxa dhacay bal suuree dadkan dhamacdu laysee dhuundhuumay ee huray arday dhigata diin iyo dhakhtar iyo aqoon-yahan inta oday la jaray dhinac ama dhabarka ruux go'an waxa dhiig qulqulay iyo ubadka isku dhagayee dhidig iyo labkuu yahay ehelkoodu dhaadayn ku dhowee garaadkoo dhugoo isweydii maydkani muxuu dhimay weli dhagar intaa lee kama dhicin adduunyada xere dhiigta aadmiga dhulka hooye laga dhigay taariikhdu may dhigin iska daa qof dhaayaha ilma dhibic ka soo tidhi ay dharkiisa qoysee ilaa dhaca qiyaamuhu dhagaxaanta ciiddiyo dhirtaa oohin wadilayd qaylada iyo dhawaaqana dadkaa dhagabeelila yaa damiirka dhaawacay iilka dhigay wanaaggii naxariista dhoofiyey iimaanka kala dhimay war miyaan la dhimanayn adduunyada la dhaafayn dhooba laysku awdayn feedhuhu isdhaafayn qayd cad laysu dhuubayn dharaar aan qarayn jirin wayse aanay dhowrnayn qof kastaa wuxuu dhigay gacan looga dhiibayn xisaab lagu dhadhaarayn ka dhambalay dadweynaha dhuuxa daadshay maatida dhegta dhiigga darayow ka iimaanku dhiman yiyo ninka dheer la baxayow qiyaamuhu markuu dhaco maalintaan dhufays jirin xaggee baad ku dhuumani waa sidee maanta soobe maxaase isbedelay halkani waa isgoyska Zobe Eki Zobe hadda waxaa loo yaqaanaa 14 Oktoobar 2 sano ka hor 14 bishii Oktoobar 2017 waxaa ka dhacay qarax aad u weyn qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo loori ah gaari tiam ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa oo aad u fara badan waxa uu ahaa qaraxii ugu xumaa abid ee ka dhaca waddankeena Soomaaliya waxa uu ahaa qaraxii ugu khasaaraha iyo dhimashada badnaa ee ka dhaca qaaradda Afrika waxana uu ahaa qaraxii labaad ee argagixiso ee ugu dhimashada badnaa dunida marka laga soo tago qaraxii September 11 2001 ka dhacay waddanka Mareykanka halkan aan taaganahay ayaa gaarigaasi uu ku qarxay waxana uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo aad u weyn iyo burbur hanti oo ay adag tahay in halkan lagu soo koobo kadibna waxa aan sidoo kale ka hadli doonaa maanta sida uu yahay xaalku gabagabada barnaamijka haddaynu nahay Soomaali wax badan baynu isdagaalnay wax badan baynu wax ku dheelinay wax badan baynu wax qaribnay waxaa la gaaray xilligii aan joojin lahayn oo gacmahana isqabsan lahayn una diyaar noqon lahayn horumarinta dadkeena
diinteenna iyo dalkeennaba. mid walba oo inaga mid ah wuxuu aaminay inaysan waxba isbedeli karin. qof walba oo noloshaada bedel waxaad arki doontaa wax isbedelay markii aad isbedeshay kadib.